hay-adaha ku shaqada leh diiwaangelinta dadka qaxootiga Yurub ayaa su'aala dadka halka ay ka soo galaan dalalkooda iyagoo dadkaasi badankoodii sheega laba dhinac mid waa dhanka Liibiya midna waa dhanka Turkiga dhinacyadaasi waxaa maamula kooxo kala duwan kuwaasi oo faa'iido badan ka sameeyay tahriibinta dadka dariiqa koowaad waa mid aad u dheer waxaana hogaamiya kooxo ka shaqeysa dadgureynta dadkaasi doonaya in ay galaan Yurub waxayna dadka tahriiba ka qortaan gudaha caasimadda iyagoo kula heshiiya lacagta ay ku baxayaan dadkaasi kuwaasi oo heshiiskooda u fiirinaya dalalka ay ka soo jeedaan iyo nolosha dadkaasi kuwa dadka tahriibiya waxay adeegsadaan baraha bulshada si xayeysiin ah sida shirkadaha shaqaalaha ay u qortaan oo kale sidaasi oo kale kuwa dadka tahriibiya waxay dadka u sheegaan qiimaha kala duwan ee safarkooda sida doomaha maraakiibta iyo diyaaradaha sidaasi oo kale dadka waxay u adeegsadaan dukumeenti been ah sida caadada ah kuwa dadka tahriibiya waxay dadka ku daadgureeyaan doomo kuwaasi oo ka soo qaada Turkiga iyo Greega laakiin safarkaasi gaaban waa mid aad halis u ah inta badan doomahaasi dadku waa ay la dagaan wadada kale ee Yurub laga soo galo ayaa ah Afrika midaasi oo Talyaaniga laga soo galo qaaradda Afrika dadka halka ay ka soo baxayaan waa ay kala duwan tahay waxayna ku xiran tahay halka ay ka soo baxayaan kuwa geeska Afrika ka soo baxaya waxay bixiyaan qarash aad u badan taasi oo ku baxda Suudaan iyo Liibiya kuwa ka soo baxaya wadamada saxaraha ka hooseeya waxay bixiyaan qarash ay ku gaaraan Niger ilaa iyo Liibiya waxaas ugu badan kuwa lacagta ka sameeya Liibiya iyo badda Mediterranean-ka sidaasi oo kale waxaa jira dulaalo kale oo Yurub ka dhex shaqeysta safarka dheer ee qaaradda Afrika waa mid aad halis u ah ee dhanka saxaraha la soo marayo taasi oo ugu daran gaariga sida dadka oo aad u raran kuwaasi oo badankooda ku geeriyooda saxaraha laakiin kuwa dadka tahriibiya ayaa si xun u jirdila dadka isla markaana ka qaata lacag madax furasho ah ama inay u shaqeeyaan sida adoomo oo kale kooxaha maleeshiyaadka dalka Liibiya ayaa dumarka jirdila isla markaana kufsada kuwa dadka tahriibiya ayaa dadka ku qasba in ay raacaan doomo rarkooda xad dhaaf u yahay kuwa badan oo dadka tahriibiyaalka ayaa dhinta markii motorka doonidaasi uu shaqada joojiyo isla markaana halkaasi naqaska ugu dhago kuwa dadka tahriibiya ayaa dadka ka qaata lacag aad u tiro badan waxaana sanadkii 2015 lagu qiyaasay in ay heleen lacag gaaraysa 4 milyan oo euro lacagtaasi oo ay dib u geliyaan daroogo iyo hub ay ku iibsadaan gudaha Yurub waxa lagu xiray dad aad u tiro badan kuwaasi oo lagu helay inay dadka tahriibiyaan dibna loogu celiyay dalalka ay ka soo jeedaan inuu nagu raado anigu ma gafaanahay markuu saan noo soo dejeenkiina waday ma gafo qof weyn oo si kala aan u haysana laakiin qofkana wada maanaan moodeynba kadib waxa dhacday dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa waxay jirta oo waalidkoona waxba haysan ka soo yaacay kadib waxa dhacday inaan aanu dhexnimaadno inuu ninkii yiraahdo 15 aadaan ugu gudihii lacagtii niga waayo ininka ka sheekayn doona waalidkaygu waxba haynin baan ka soo dhaacnay telefoon baan qaraacnay waalidkiisaan wax ku ognaan canaanana oo nidhaahna sidaad u tiraada uu wiigiisu uu dilayaa ninkuya kadib waxa dhacday ninkii inaanu ka soo gudubno uu ninkii sidoo noo haysto dadkii lacagta loo soo diraa noqono dad aad u dhibaataysan aanu meeshii kaga nimaadno oo dhalinyaro u badan Soomaaliya ragga maalin walba inta barta la taxo oo bashaarka laga bixiyo ayaa la qaraaci jiro la tumi jiray waxaana lagu oran jiray mar walba inta la tumo dhalinyarada ayaana oran karahayn maalin habeenada kamid ah waxa dhacay wiil kiniin inuu helo iraado gaastra ay haysa biyo ii soo tuur biyo ayaanu tuurnay inan iyo aniga sidii noo qaraacay ayaa naftiina lagaga gooyay kadib waxa dhacday inuu ninkaasi badna la harbadna gudbiyo meel sabha leedana loo gudbiyay tii hor waxba ma yahayn birbuna la dhici jiray qol aad u kulul bunikaasina gelin jiray hablo ayaa aad koox baa nagu horeysay telefoon bay noo soo dirtay waxay yiraahdeen waa jirkeyga waa la taataabtay ragina la socdo waxba noomay qabanin waxaan inagu adkeynaa in ninka la joogtaan soo barinaa si uu ragga imi soo kaxaynay inagu adkeeyo kadib waa aanu barinay markii aanu jidka marinay wiilal ayaanu qabsanay nala socdo nirweyna qabaan dirbaaxo laad feed maxaad u baahnayd aad taraabiyaan raba maxaad wadankaagii ka keenay waxaan aynu gumaytumahayn meel tara waxaanu nimid Taraabilis la yiraahdo Taraabilis qololka ayaana loogu soo daanay jiray mar walba qololkana loogu yimi jiray waxa qof waliba ka carari u ka fikiraya tolo jidku ma hagaagi doontaa baddu jawigeedu aad ka gudubtide kadib waxa dhacday badii dhexdeedii ayaan nimid dirbaaxa uu ilo dhacanin Carabi oo hinaan ku ooyay waxaan sii doonta markaad korteed ka nabadgelaysa kii doonta nasaari ayaa markuu sii degay dirbaaxaad kan dhabarkayga dhuftay kadib waxa dhacday in la isku kaayo soo cabeeyo inaan isku gubano inaan isku xumaano in doonta naga dalooshanto sidee maxay asbaab u rahay
doonta miyaa doonta may dagaalka muu dhex dhicin doontu waxay ahayd bac kadib waxaa dhacay aad waxaanu ahayn 115 qof ayaanu doon yaro baca ku kornay kadib 10 qof loogu talagalay waa 10 qof loogu talagalay ayaa la isku kaaya cabay kadibna qofkii meel uu durka ma hayo dadku way isku gubteen kadib waxaa dhacday aakhir sidii noola soo rabaasina bartan naga soo xidho bartan markii naga soo xidhana anu markii ay doontu soo xidhatay ee dadkii laga guray awood aan kaga soo dego waan waayay waana la iga dhex qaado waxa la ijeeyay dhakhtar marka badan waxaan soo soconay 3 cishaan ku soo dhex jirnay waxba cunto iyo biyo iyo waanu ka soo qaadanay buskud meesha laakiin waxa abateedi noomay noqon biyihii ayaa noogu soo dhex galay kadibna waxaanu ka cunay waanu ka weynay kadib waxaa dhacday qof waliba xitaa kaadidii ayaanu 3 cisho ka dambeysay kaaji kar weynay kadibna dhibaato aad u xun baa nagala kulantay dhalinyarada Soomaaliyeed ee jidka soo maraysan waxaan aad ugu waaninayaa inaanay ku soo talagelin waalidkoodna aanay dhibin jidkan ay isleeyihiin waxa dhibaatada ku keenaya waxa weeye qofkii maanta tan yimi ayaa wuxuu samaynayaa intuu sawir galo ayuu odhanayaa Yurubaan joogaa oo waaniga qurux badan kadib wuxuu leeyahay saaxiibkaagaasi halku gaadhay ad gaadhi laakiin wallahi wax aliya waxay bartan taalaami jirto nin walba guriga hooyadii iyo dagaalka wadankooda ka dhacay wuxuu dhaamaama jiro inuu dhex joogo waayo sababtoo ah waalidkan waxba hayn baa laga imanayaa waalidkan waxba hayn baa la dhibayaa inkaartoodii wata maanta aanu intaan islahay waxba faa'iideysan koonti dharkaan dhixminaan 100 shilin u diri karin annaga bisha dhexdeedii aan isoo wada shaxaadina hadaan Soomaali nahay waxaan aad ugu waani lahaa dhalinyarada soo baxaysa in wadankooda iska joogaan jidka aan soo maray waxaan ninahay ma dhimanay waxaan ninahay ma rafaadayo inana waaba cawro iska daa waxaan ku waani lahaa inay dhalinyaradaas wadankooda joogaan oo ay iska joogaan wax aliyo waxaan ku haynaa aniga maanta waxaan qof walba way garanayaa hadii dadka qaar ay arkaan daawada waxaan ku oran lahaa waxaan ku hayo ma jirto inunkuna waxa ka faa'iideysan ma jirto ku yimina waxay ku dhaxaystaan ma jirto marka waxaan oran lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed hadibina waalidkiin meesha jidka aad ka xunaha ku dhimanayna waa naxdin anaguna maanta faa'iido kama hayno inta ayaan kordhinayaa waayo xoolaha kaaga baxay imsa dollar aan kaaga baxay sababta inta waxa igaga baxay 8,000 baa inta igaga baxaysay way soo tobantan dhexda soconay mar baan la dhacay oo rag burcadina helayeen oo ay naga qaadayeen nimankii nooranay intaas in leeyin bixiya waanu soo diraynaa nooranayna kadibna intii oo waxaan lagu waday kolba nimarkana loo geeloonay u qarax reerkooda soo diraana waalidkooda ooyaya oo aad u rafaadaysan baa mar walba soo diray maanta waxaan ugu abaalgudnay waxaan u siino toona ma hayno marka waxaan oran lahaa dadka dhibaataysan hadibina waalidkiin inaguna ha soo bixina naxdinta galeen wax loo dhigaa jiray dad aad u fara badan way dhintaan intan wadada marayna kolba waxaan aragnaa la facal cad markaas la yiraahdo dad ba halka lagu aasay dadka been bay u haystaan waxay isleen qof waliba wuxuu isleeyahay wadankan wuxuu ku diiday inaad Yurub tagto laakiin waa wax jira aad iyo aad ma santahay baan kaga mahadcelinayaa